dowladda Itoobiya ayaa mar kale dib u soo noolaysa damaceeda ku aadan biyaha Soomaaliya. Tallaabadan ayaa timid ka gadaal markii uu burburay heshiiskii Ankara ay ku wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Warar aynu helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro uu ku jeedo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro ayaa dhowaan ku tagi doona safar aan la shaacin magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. madaxweyne Cirro ayaa halkaasi waxa uu kulamo kula qaadan doona ra'iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya Abiy Ahmed, iyaguna ka wada hadli doona xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale heshiiska suurtagalka ay tahay in dhinacyadu mar kale ay galaan. Socdaalkan Cirro ee la filayo inuu ku tago magaalada Addis Ababa ayaa lagu eegi doonaa waxaa laga yeelayo isfahamkii sanadii hore dhex maray Hargeysa iyo Addis Ababa, sida uu xaqiijiyay wasiirka madaxtooyada Somaliland wasiir Qadar Xuseen Cabdi oo waraysi gaar ah bixiyay ayaa waxa uu sheegay in isfahamkii hore ay u wada gaareen Somaliland iyo Itoobiya dib loo eegi doono, isla markaana waxa uu ka gaabsaday inuu Cirro tagayo magaalada Addis Ababa iyo in kale si loo sii ambaqaado heshiiska dhinacyada dhex maray. Tani waxa ay imaadaysaa xilli uu burbur xoogan uu ku yimid heshiiskii Ankara ku dhex maray madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo guud ahaanba meesha ka baxay. waxaana la tilmaamayaa in xiisada labada dowladood guud ahaanba cirka ay isku sii shareertay. Somaliland ayaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay fursad u aragto, isla markaana Addis Ababa ay xiriir kula sameyn karto. waxaana la tilmaamayaa in dhowaan uu tagayo gudaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro. wadahadaladu waxa ay hakadeen kadib markii ay dowladda Itoobiya diiday soo jeedinta Soomaaliya ee ku aadan guud ahaan inay isticmaasho dekedaha gudaha Soomaaliya, iyadoo markaasi loo madax banaynayo. Tallaabadan waxaa la tilmaamayaa in dowladda Soomaaliya ay ganafka ku dhufatay, isla markaana ay iska diiday. Muqdisho waxa ay doonaysaa in guud ahaanba aan lagu xadgudbin madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamayaa in tallaabadan ay si weyn dhinacyadu ay uga wada shaqaynayaan. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana la tilmaamayaa in dhankiisa tallaabadan uu diiday. waxaa la soo sheeqaaday in ra'iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya guud ahaan uu doonayo in dalabkiisa lagu gacan saydhay, uu mar kale ku doonayo in si awoodahi uu ku awoodtuursado, isla markaana Somaliland dhankeeda uu ka wareego. waxaana uu doonayaa inuu la xirto Somaliland. Cabdiraxmaan Cirro ayaana la tilmaamayaa inuu ugu yeerayo gudaha magaalada Addis Ababa si markaasi loo sii ambaqaado heshiiskii Korneyl Muuse Biixi uu la galay horraantii sanadii tagtay dowladda waddankaasi Itoobiya, isla markaana ku qotomay in 20 kilomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya laga siiyo dowladda waddankaasi Itoobiya. balse Somaliland waxa ay sheegtay in laga kireeyay 20 kilomitir oo ka mid ah gobolka Awdal xeebtiisu, waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi weyn ay uga hortimid dowladda Soomaaliya. Itoobiya wali waxa ay ku adkaysanaysaa fulinta heshiiskii ay la gashay Somaliland, halka Soomaaliyana ay wado ololo kale oo diblomaasiyadeed oo lagu xanibayo dhaqdhaqaaq weliba oo dowladda Itoobiya ay ku qorsheynaysa in guud ahaanba tallaabooyin looga xadgudbayo madax banaanida Soomaaliya in lagu qaado, sida ay sheegeen saraakiil xoog ogaal ah, isla markaana codsaday inaan la isticmaalin magacooda. ma jiro wax kulamo rasmi ah oo si gooni ah u dhex maray dhinacyada kadib burburkii ka dhashay heshiiskii dhinacyadu ay gaareen bishii Abriil. arrimahan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli Soomaaliya iyo Masar ay dhowaan dib u sii ambaqaadeen heshiis horey ay u wada galeen, isla markaana dib loo cusboonaysiiyay, iyadoo dalabyada dhinacyada ka imanaya ay xoogaysanayaan. isla markaana ciidamada Itoobiya ayaa la tilmaamayaa inay doonayaan iyaga qudhoodu inay garaan xeebaha badda cas. Itoobiyana waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay qorsheynayso. Soomaaliyana waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba ay qorsheynayso tallaabooyin culus oo arrintaasi lagu hor istaagayo. waxay u muuqanaysaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinacyadu ay sameynayaan iyo duulaano culus oo Itoobiya mar kale ay isugu dayayso inay ku hanato bad gudaha Soomaaliya. waxayna u muuqanaysaa markan xulafo xoogan inay samaysanayso dowladda Soomaaliya. ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay tilmaamayaan in Masar ay qorsheynayso in saldhig military ay ka samaysato gudaha magaalada Berbera. tallaabadaasi ayaa la tilmaamayaa in dowladda Soomaaliya ay kala hadashay. dowladda Soomaaliya ayaana la tilmaamayaa inay qalinka ku duugtay. qorshahan waxa uu noqonayaa mid culus, waxaana la tilmaamayaa inay suurtagal noqon karto in Somaliland tallaabadaasi ay ka biyadiido. waxaase jira tallaabooyin kale oo Maraykanka iyo sidoo kale
dowladda waddankaasi Israa'iil ay dabada ka riixayaan islamarkaana saldhig militari oo caalami ah halkaasi looga suurtagelinayo. Qorshahaasi waxa uu suurtagelin karaa in wadamada Carbeed halkaasi laga weeraro, gaar ahaan Xuutiyiinta dagaalka kula jira dowladaha Mareykanka iyo reer galbeedka, waxayna u muuqanaysaa tallaabo culus oo mar kale dagaal gelin karta dowladda Soomaaliya islamarkaana lagu soo weerari karo halkaasi. Waxay u muuqanaysaa tallaabadaasi inay culus tahay. Dowladda Itoobiyana waxa ay ku dadaalaysaa qudheedu inay qaado tallaabooyin culus oo arrintaasi looga hortagayo si markaasi loo qaado dhaqdhaqaaqyo xoogan oo militari oo markaasi ka dhana dowladda Masaarida oo ay isku hayaan biyo-xireenka webiga Nile oo wejigii ugu dambeeyay dowladda Itoobiya ay shaacisay in guud ahaanba la buuxiyey. Waxaana u muuqanaysaa tallaabadaasi guud ahaanba mid sababi karta in gacanka hadal ay dhexmaraan labada dowladood oo siyaabooyin kala duwan awoodda isugu sheeganaya. Dowladda Soomaaliya ayay falanqeeyaashu tilmaamayaan inay isku dhex turtay meel ay isku haystaan walow siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen. Waxaana la tilmaamayaa in dowladda Soomaaliya markan ay qaadayso tallaabooyin culus oo looga hortagayo dhaqdhaqaaq waliba oo markaasi ka hor iman kara tallaabo waliba oo aan sharci ahayn oo ay dhinacyadu qaadayaan islamarkaana Itoobiya ay ku doonayso inay ku harato mid ka mid ah biyaha Soomaaliya.